الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أحبابي وإخوتي، بإذن رب العالمين وقتاً أن هيسنو هذا bilowgayno in sha allahu tacaala waxaa hadafkeenu uu yahay ama bilowgeena koobaad aan bilaabaynaa duruusta ka bixi doonta masjidka inuu ugu horeeyo kitaabkan sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam ee uu inoo qoray sheekheennii sheekh maxamed naasir iddiin alalbani raximahu llahu tacaala. ilaahayna jala jalaaluhu haynaga dhigo kuwa uu ku anfaco hadalka midkiisa toosan. kitaabkan sababta aan u bilownay ama danta aan ka leenahay waxa weeye qofka muslimka ah kadib nicmada allah tabaaraka wa tacaala uu siiyey oo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan markaad sugto allah tabaaraka wa tacaala jiritaankiisa risaalada rasuulkan aad qaadato sala allahu alayhi wasalam, qofka muslimka waxaa looga baahan yahay ka labaad inuu u gudbo waa iqaami salaa, salaada oo toosiso. salaada toositaankeedu waa arrin ku saabsan rumaynta aad rumaysay allah tabaaraka wa tacaala. kitaabkani waxa sheekhu u guntay ama uu qoray u sameeyey waqti ugu bixiyey waynu arkaynaa. wuxuu inoo sheegayaa isaga inooga warramaya hadafka iyo danta uu qoray. laakiin waxaan rabaa marka hore inaan ogaano, maadaama salaadu ay tahay rukni min arkaan alislaam, haddana aad mar walba waxa ugu horeeya qofka muslimka sida nabiga sal allahu alay wasalam inoo tilmaamay ay tahay in waxa ugu horeeya ee lagu xisaabinayo ay tahay salaada. salaadaadu marka ma ahayd salaadaadu mid sax ku dhacday oo sidii nabiga sala allahu calayhi wasalam ina looga soo gudbiyey ma u tukatay mise waad iska tukatay. marka qofka muslimka waxaa laga rabaa in uu barto oo uu ogaado salaadiisu sax ma tahay mise ma aha. aqbalka ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala. sababtii lagu aqbalay haddaad la imaatana rabbi wuu ka aqbalaya tabaaraka wa tacaala. laakiin in aad barata lagaa rabaa salaadii sida aan u tukanayo sax ma tahay oo si nabiga sala allahu calayhi wasalam u tukada uu yidhi ma u tukanayaa mise ma tukanaya. waa mid u baahan qofku inuu naftiisa weydiiyo. adaa lagu weydiinaa, qabriga keligaa baa lagu dhigi, laba mari oo cadbad adduunkan kala tegi. waxa ugu horeeyo lagu weydiinayna waxa weye diintaada ka mid a, diinta islaamka ee nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam uu kuu keenay, nabigana lagu weydiini. diintani marka waxa ugu horeeya diintani lagaa weydiina waa salaadii. salaadii ma u tukatay oo salaadii ma oola imaatay adiga tukanaya? kan tukanayna laysma weydiiyo. kama hadlayno waajibaadkeeda iyo waajib ma igu tahay iyo kama ihiyo. aniga tukanaya ee waqtigayga oo dhan bixinaya salaada aan tukanayo ma tahay salaadii layga rabay mise ma ah? waa midda koobaad inaad is weydiiso. waa sax shayga lagu kala qaado, waxyaabaha lagu kala garto cibaadada iyo caadada, waxa ugu horeeya waa niyada, soo maha? niyada ugu horeysa. markaad hadda qabaysanayso, qabays iska qabaysanayso, iyo markaad waajibu kugu yahay, wax aad ku kala qaadayso qabays waa qabays, laakiin waxaad ku kala qaadayso waa niyada. haddaad iska qabaysato oo aadan niyaba aadan gelin, ma qabayskii ma kaa dhacay mise ma kaa dhace? qabayskii wuu kaa dhacay, laakiin waajibkii lagaa rabo inaad niyooto weynaad qabayskii aad niyatay. waxa ugu horeeya ee adduunyadani markaad ka tagto lagu xisaabina waxaynu nidhi waa salaad. salaadii marka waxaan rabnaa inaan baranno sida nabiga sala allahu calayhi wasalam laga wariyey. kitaabkani marka waxa uu ka sheekaynayo meesha u horeysa meesha u dambaysa. wuxuu ku qoray sheekhu sifatu salaati nabiy min atakbiiri ila tasliim. inaad allahu akbar dhahdo
إيه أنت تكبحيس أنت أول حيس محل قاربا شيخ كما ورب المركة رحمة الله تعالى عليه محاكه الرئية تكبيرته استقبال قبله قبل هذا كتاب كدن قبل ذي نجيت ستو مركة صلاة تكنيس وحكوه الرئية لقاربا مركة محاكه الرئية حرب أنت يرتع إن كهذا الله صلاة دين لقاربا هرتا صلاة دين بقول تكنيس سيدي لقاربي صلاة مركة هذه سمحة لقاربا وحلقاربا إن آب استاهرسو سماهين ظهور بالغ بلا كتبت فقه إذل مركة لقى الله هيو عبادة صلاة مركة لقى الله هيو كتاب طهارة لقى بالله لكن الشيخ صوته وقب الله وين محيتها كتاب طهارة وحكب الله من التكبير إلى التسليم أيو كب الله مركة أذيقة ما دام أب صلاة دي قبلة وسو جسو مساجد كايماتين القبلة وجسو تلقى ربا الله أكبر صلاة القبلة ومحاكوه الرئي مركة انت كهريسay marka in la baro hadda oo aan barano waa shay waajib horaan ku soo baranay oo markii salaadii la tagahayo maxaa laga rabaa inaad taahirato inaad weysiisato sida uu weysayso sa uu weysaysan lahayd baa la baray nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiisiisan ku baranay fiqhiga markaan akhrisanaynay safina salaad iyo zakat markaan akhrisanaynay kidi salaada si weysadii oo dhamaan soo baran kamuusa bilaabay sheekhu marka طهارة كم وصل بالله وحن لا يمركا انت نقود بين كتابك باللوجيسة إن أرجنه سببت الشيخني وبالله بي كتاب كني سببت كتابك أقرأ وحد في رسالة بقى صدني اللي حبينه كبالله بينا صدني اللي حفيري وانسو كوبي لفظك فربضن أو شيخ وكسو قري شرح كتاب كان كو خصبتي انه كتاب كان وكان وحوي الشيخ رحمه الله تعالى ما انا نكر استاجن كتاب كلمية صلاة او باللغة الا دماتك فقهاء مركي قريان كتبته اذل نبى ماشي سوكا شاكينا صلاة قيبة لغو شاكينا لكن كتاب إن استاكتو الله أكبر كبلو إلا السلام ونقصتو إن كوبا أو صل إيا أساس وإيهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وفسير إيسا كتاب كإلهي مركا سبب تاسو كتاب كان أقري سي أمد مسلمين تاي أوغفا إيديستان إن كوبان أو صلاة دودو أي نقطة مدي النبي صلى الله عليه وسلم أتوكنشري أو يري صلوا كما رأيتموني أصلي أتو كذا سيدا أركتين أنيقو أتوكني هدبا هدي أتقف مسلمة ما أنت أو وقت كان قرن كان أتشوكتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما آذن كل من mana aadan arag isagoo tukanaya seebaad u tukan kartaa marka uu ku leeyahay u tuko sida aan u tukaday sheekhu marka rahimahullahu ta'ala wuxuu soo koobay axaadiistii iyo salaada laga bilaabo bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda nabigu suu u tukan jiray sallallahu alayhi wasallam marka inaad adigoo salaadii tukanaya oo ku daynaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ina iska tukato ma iska tuko marka wad istaagtay marka sheekha kitaabkani sababta uu alifay baan rabaa in halka ka qaadano sababta kitaabkan uu alifay ay tahay inuu isku keeno axaadiistii farabadnayda kala tagni walba meel uu ku qoray inuu hal meel inoogu keeno marka labaad kitaabkani wuxuu ka sheekeynayaa sheekhu إن هذا مركي صفة الصلاة النبي بالآخر اللي يراهدو الضد بضنبا يا وحوغا كتابك حكا قبان عبسي مقرنا يسي وغا بقايان أما وحوغا دليل يسو تشيدين يانو دي أنا ومرهدو الشيخ الباني رحمه الله تعالى وهانين حديثة وحا كتخصي فقهي إيو
أنا شافعي أنا هي أنا حنبلي أنا هي أنا مذهب أنا هي. طيب شيخ وحوت المامي أذيك هذا تقف مسلمة رمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أتكنيسو قضياني صلى الله عليه وسلم مسقف بني آدم وكالات قضيان هذا يسوي دينيس هذا لو دينيا هذا نفط هذا ويدينيس أنا فقهي يو هبل باير حاجة يسوي مسلم أنا هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ مركا سؤوسا أوغد عن الله دهين الشيخ فلان بن رعسنا هي أنا وفقه جاسن رعسنا وصاص بالي رسمه أيه وحو سوء أروريي علماء الأمة الأئمة الأربعة قفوا البقية هذا الكيسيب وهل كان هو سوقري وحط الماما يا مركا حدي أن حديث كسوقاته ولا جاي هذا الكحديث كني إن فهمك أد هيستي وفقه أد اسكو حدي وأذيق اسكو كوبتي وخلاف سني هي إن هذا الملح كدعن سببته الإمام أبو حنيفة محمد بن النعمان يا إمام الشافعي محمد بن إدريس الإمام أحمد بن حنبل إمام مالك أركتي ذي فكر كودي بكوسو كتبي مذول بحلقن وكوسو سوقا أرنتو ذا جب ذا أي واحد تهي مساجد هذا مركز كوكلة تكنيس وهذا أركتي نبا سيبو وتكنية شيخ مركز هالكن أيو حكوسو كوبي أوليه وحن له أقوال الأمة أئمة هذا الكوذا إيو إن للراعو سنة إن للراعو أيا كم أوليسا إن آد مذهب كعلماء أي كدبا كمد بمدك كلا كدن بيه وفكرك وقري وفهمك وفهمي أيان كتصها يا إن صحتهي إنه حديث كان يا آيات كان كسوة أرورية كتاب كان إن أي صحتهي قف مسلمات هي إن أتراعضه سبب توقع هيسكو حرين هالمل هدي مثلا رعسنتهي إمام أبو حنيفة أو ذا أنا مذهب كحنفي بانا هي إمام أبو حنيفة أيا وحا وكيري كتاب ذيسا انت لسوق ريو مذول بنا وكور رميا أردذي سينو أي كشيغيان إن يري إذا صح الحديث فهو مذهبي حديثك هدو صحيحي هي أركتو أنيقنا أن فكري أما فهم أن قاتي حديث كاس أيا أنيق مذهب كيغا هو تسالي إمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه إن أنيقو أن فهم كفهمي لكن هذا أركت حديث صحيحة أو كسقنا ذي النبي صلى الله عليه وسلم راعي السجا أصحابتي صحابة الله يكورني يان بكمديهن إذا صح الحديث فهو مذهبي وحواجب كأين الرعضه حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم وحاوير إمام أبو حنيفة قف مسلمة أو مبنانا إن أراعو هذا الكيغا هدي أغاذو إن هذا الكيغو خلاف سيهي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو مبنانا مركا قاركودنا وحاويري حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وحا حرام كأه إنو أنيغا فتوى إذا الشيغو هدي وسن أوين ميشان كسوقاتي أنا حنيفة وحي باكو دقهي كما دقهي وحي حديث بو أركي نبي صلى الله عليه وسلم أيو فهم كيسيبو كسي وعوكو يري فهم كيغا حق راعن حقاضن إلا أركت ميشان كسوقاتي سواتو النبي صلى الله عليه وسلم وكسوقاتي حديث كيس صدرت بو حكوليه هاي أنغو وحانا هاي بني آدم بشر هذا البان أورنينا مانت برينا وان كان نقونينا صوبت وان فهمك الحديث كلا أركي كرا ما أنت حديث بان هلي ما أنا كدام حديث أنا هرو مقلم بان أركي هذا الفكر كان إروا كسو الله بانيا هدان كل أنا كي أن شيخ ساسو يري حديث كبار هرو بكسو نقضي الشيخ هذا الكيس كسو الله بتي وهو أركي حديث كلا صح حديث رسولك قاتل صلى الله عليه وسلم قاضن بيوكو يري مركا أنه بشر بان نهاية هذا كان مات برينا كان نقون كرا ركتي كلا وحوكو يري مروا لها لي أرضيسي يعقوب أبو يوسف ayaa wuxuu ku yiri ha iga qorin wax kasto adiga maqasho
wax kastoo iga maqasho ha qorin waxa laga yaabaa maanta inaan aragti ama fikir aan qaato iyo ra'yi oo aan bedelo berri waxa laga yaabaa inaan aragti kala qaato oo beri dambe bedelo maxaa dhacay waxa laga yaabaa xadiis kale iyo aragti kale iyo fikirkii aqoontii uu soo kordhay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam axaadiistiisa ku cadaanaysa in ay waajib kugu tahay inaad raacdo waxa uu leeyahay imaamu abu xaniifa raxmatullaahi tacalayhi haddii aan dhaho hadal khilaafaya kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka taga hadalkayga ha qaadanina waa sida dhabka ay tahay xaqiiqadu ay tahay yani ma adiga ma wuxuu ilaahay kugu adoonsaday inaad abu xaniifa raacdo mise inaad raacdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu kugu adoonsaday nabiga inaad raacdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagii baa kule ani hadalkayga raacani waxaan raacdaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu imaamu maalik almaalikiya markii maanta laga hadlayo imaamu maalik raxmatullahi tacaala calayhi waxa uu leeyahay waxaan nahay dad bini aadama oo gafi kara asiibina kara waan asiibaynaa waana gafi karaa fiiriya hadalkayga wax alla wixii waafaqa hadalkayga hadalka kitaabka ilaahi sallallahu alayhi ilaah kitaabka ilaahi jalla jalaaluhu iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam qaatu yiri fakhuduuh inma ana basharun ukhti wa usib fanzuruu في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه وإمام مالك هذا الكيس بشر بانهي وان خلدمي وان أصيبي أركتذا إذا فيرية فكر كيغا وحي وافق كتابك إلهي إيو سنة رسولك صلى الله عليه وسلم قات وحي خلافنا oo dhinac oo ka marana te ka taga iska dhaaf marka ma ku khasbanid inaad hadalkii fikirka qaadato waxa uu leeyahay imaam maalik xadiiska hadalkiisana ku soo kooba laysa li ahadin ba'da nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma oo sugnaan nabiga gadaashiisa hadal illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ba'da nabiy hadal qof uu yiri ma jirto waana la qaadan waana laga tagi illa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga hadalkiisa khiyaar ma lihid adigu inaad samayso waxaad ilaahay kugu adoonsaday inaad raacdo waana aayadda allah tabaaraka wa tacaala inoo soo dejiyey oo ah in aan nabiga ku dayano oo rasuulka sal allahu alay wasalam aanan marnaba ka leexanin alimaam shaafici oo kitaabku uu ka sheekaynayo sheekhu bogga 44 waxa uu leeyahay marka laga hadlo imaam shaafici waa aqrab lisunna markii aimada dhan laga soo waramayo axaadiista iyo fiqiga iyo culimadii soo marto dhan imaam shaafici waxay ahaayeen dadkii u soo shaqeeyay diintan u soo shaqeeyay axaadiis ta rasuulka sallallahu alayhi dadkii inta arkay ee axaadiis la soo maray ama kutub la qorayo kutubta ugu badan bay ahaayeen sadarteed أي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وحوليه قف مجر ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه قف حلقية قف كستقف مجر إلا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وأصيبون كل حنكرا وحكستون إلى هذا الله أما أنسل أياله ورسولك صلى الله عليه وسلم كالسعودة كسبنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحان أهينا أركتان فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي هدنا هذا المجر النبي صلى النبي جيري صلى الله عليه وسلم هدو هذا الكيجي هذا الرسولك وخلافه هذا الرسولك لقادنا يا وانا هذا الكيجي وير مربى هدو هذا الرسولك هذا الشر قاد هذا الرسولك صلى الله عليه وسلم وحاوي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا إلهي إنه سودتي القرآن كان نوبي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيماتي هدي والنبي هذا الإذين كان راعي عليه إمام الشافعي رحمة الله تعالى وحولي أنا هذا الإرادة وأنا أصيب كرا وأنا كل حن كرا لكن هدو هذا الكي وهذا الرسول أركتنه قرب يستاجو
هذا الرسول كقال صلى الله عليه وسلم وانا هذا الرسول وانا هذا الكيجي انا كون نبي يرو من لا هي هذا aragto wax khilaafsan hayga qaadanayna aniga dadka muslimiinta waxa uu leeyahay Imam Shaafici dadka muslimiinta waxay isku waafaqeen in ay cadaystaan sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam qof oo ma banaana in uu ka tago hadalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadal qof kale yiri ooga tago yani صلوات ربي سن هذا الكيس ويالا إن قف كلا قادته تي ابن عباس رضي الله عنه مركي اسكو ما الصحابة دي ويري مرك تاي نبي جاير كان إليهن عمر باير ويري ورمانتون عمر أبو بكر بدل الدر بردسا أن الرسول كايري بان إذن الله قات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحول الإمام الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أركتان كتاب كي يكون أركتان وخلاف سن رسولك فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قات سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت أنا قل اسكت داي وحن إذن إذا صح الحديث فهو مذهبي محان صومر الإمام أبو حنيفة ينوير إذا صح الحديث فهو مذهبي إمام الشافعي محيري إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا حديثك الصحيح والنقض الصح والنقض وأنا أفهم كله أما فقه كله هذيك أركتين حديث كان نبي أنا مذهب كيجي ويان هذيك مسلم كاساس على جارة إن كتاب كان وحى وكوبي وإذل وقري الشيخ إنه كسو أروري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مدة كله إمام أبو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وحى أوليه هاي لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا زر خذ من حيث أخذوا وحكوا لي هذا قف مسلمة ورمالك إنها الراعن شافعي إنها أردن إيزاوي عنها الراعن أنها الراعن ماشي كسوقاتين كسوقاتين حاجة كسوقاتين يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إمام مالك موحي بكسو دقي أو شافعي موحي بكسو دقي مايا وأئمة إلى لي دين إسلامك فهمي oo intuu soo gaadhay xadiis soo gaadhay buu fahmay markaasuu umada u gudbinay markaas iyagu waxay ku leeyihiin xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaad aragto oo uu sax yahay aniga waa madhabkeegii isaga qaado imaam ahmed ibn hanbal wuxuu ku leeyahay war qofna ha ku dayano ha taqliidin taqliid ma la yiraahdaa in aad la imaato wuxuu sameeyay haduu talaabo qaado haduu jeesinaajis taqliid wax alla wuxuu sameeyay inaad samayso marka wuxuu leeyahay لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به من التابعين بعد الرجل فهو مخير بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وحي الحديث كالنبي كويدو كتاب كإله كويدو سنة النبي كويدو ولا جواي ما بلا جواي شريعة الإسلام ككتاب كإله هنا كنا ما يسترنتهاي سنة الرسول كان كنا ما يسترنتهاي فهم الأمة كنا ما يسترنتهاي إجماعنا كنا ما يسترنتهاي شيخ أنت أصبح أسوأ أرورنا يقول أقواش أسوأ أرور إخواني إن تصو إن مذاهبت تدكم أنت أي كوكلا حرحريسيهن meelaha inoo kala qolosha inoo yeesho in maanta leeyahay maxaa maanta looga bilaabi waayay safiinadeen asal xagu ku ahaa safiinatu salaat imam shaafici intuu ka keenay quraanka iyo sunnadu fahmayso maahayn imaam albani rahimahullah ta'ala wuxuu leeyahay anigu imaam shaaficina ma khilaafin imaam maalikna ma khilaafin anigu waxaan arkaa inaad ka qaadato meeshay ka qaateen وحديث كمان أنا كوشي جيا دليل شو حديثك نبي صلى الله عليه وسلم حتى هدي لو يراهدو صلاة دمرك تكنيس الله أكبر باطل كعمها حاجاتك بالله حاجات دي ما كربادو قاضي ما يوسي كل شيء كرده ما ذو اسك الله أكبر به حاجاتك قاضي وين الدليل هيسته waxyaabaha kitaabkan aan u bilownay ee asaaska ugu dhignayba waxaan rabaa inaan ogaado qof walba naftaydan aan ku baraynaa in aadan salaadaadu ay noqoto mid la socota nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisi iyo daliilkiisi marka qaarkood kitaabada marka la akhrinayo waxa ku kala cadaanaya marka maanta akhriso baaqo mid kale caaday marka noqoni hada markaas
تحيات صلاة فرفرنيس وجهت وجه الأخرنيس هذا بالكو علس وجهت وجه الفطر السماوات عرب كاجاس كبرنيا أظن أجين أو مقن أو بيرت هذا فلانية قد وجهت وجه الفطر السماوات والأرض إحنا في المصيبة دي وأنا ما قنت يا لكن مركز كلب بدشوا ونصنع النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا وما أنت تن أخرسه برهنا تكلا أخرسه تنا تكلا أخرسه وتشوقي قلبك وتاجن وتاجن تناسلا وتاجن تدوغانيسا صح ما مركا تاسا وحاب وهناكسن إن أصلك أساسك خادسه النبي صلى الله عليه وسلم مركان الله أكبر ليه سيديبو ديجري هذا مساجد كان بالفير وفيرسو تكوني فير مركا اللي تكوني هذيك ديبس كو نقو مربو waxaan arkay meelaha qaar kood culimadu ay leeyihiin markii culimada la leeyahay sheekh al-Basair sheekha raacin macnaha waxay dhaheen culimadu aniga yani cilmigayga qaado laakiin maxaa la dhihi jiray amalkayga qaadan maxaa amalkayga qaadan sheekha muslimka ah ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam dhaxlay ee diinta ka dhaxlay dhaqankiisu iyo amalkiisu waa in uu raaco rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maxaa yeelay هو ورثة الأنبياء سما مركب محد إيده علم جاي قاضي عمل كي قاضني النبي وحلوجة دين هي تاجني يفرد يصعد سجل لوجة دين هذا كان وين لقى طيب صدر تاد وحر كيسا شيخ كتاب كآخرنا يا أو له نبي حديث كدين تآخرنا يا مركو صلاة دجلو قف كهالكامري إيش ولا راعي كحاجة مر حقه راعي وشيخ كتاب شيخ آخرنا يا مركاسه وحدي وفكران إيري مركا إليه سؤال ذا مثال كده يقولين ونوع علم جاي قاضي عمل كي قاضني شو وحياله بدن وقفف بدن خلال بدن باجرت صدرت وإن يعني وحن عمل كان قبنينه وإن صل ويله أساس ويله كتاب كمركا شيخ وحو وقري وحويه إن صلاة أتوكنيسو إننا نقولن أين هذا كان نقولن وعباده وين عباده والأكتهي إن هذا مرنا بهبيراتي هذا كبح كريم مرنا waxaad u baahan tahay marka inaad ogaato xagee baa lagu akhriya xagee baa lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri seebus u yiri halkee buu ku yiri marka hadii laakiin hadaadan ogaanodan baarin oo wixii ka noqoto cibaado ka noqoto caado ka noqoto waxa laga yaabaa inaad ku hadhowto aad kala garan weydo waxan aad sameynayso ma sunna mise ma marka waxa laga yaabaa inaad adigoo diintiiba dhinac ka wata inaad hadhowto tagto salaadiina tukan weydo صلاة هذه الهالي وحين نري وح أوجه الرأي اللي حسابين هو صلاة دي هذه صح نقطة علامة هو ونكسن هذه سو حديث كسامهين هذه صلاة ده صح نقطة سيدي لوتو كذا أوسو تكتب النبي صلى الله عليه وسلم وحن أورني صح عمل كذا بيصابته مركز صلاة تكتب هذه أوتو صلى النبي أوتو صلى الله عليه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بدهلي سمع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة إني كاعل يسوي كستا وكسو هرشيد الدين الإسلام كل رقم حما أخلاق حما مش لما كاعل على النساء صادرت كتاب كان وكتاب أد مهم وصلاة هذا عبادة هذا كوكوبية إخواني كتاب كان سانت المامني الشيخ قبال القبلة لكن waxaan rabaa intaan istiqbaal qibla inuu aadin insha Allah taala darsiga soo socdana ka bilaabi doono in aan tahaaradii iyo weysadii ama biyihii lagu weysaysanayay kadib markaan soo taahirano soo weysaysano baynu istiqbaal qibla u imaanayna waa kitaabka bilowgiisa taasa ya aad moodaa inay inooga waxaysan tahay inaan helo isla helo كتبت هوري أنا أصل كأنه قبل لابس كتاب الطهارة اللي قبل لابس شري كتاب استقبال القبل قبل لابي وحي كهري أو أنت يسوي دين لهيد هرت هرا بين الطهارة دي سيب الله طاهر قادنا بيها أن كويسي سنة يسيهين بيه بان كويسي سن كرايو سيديبان كويسي سنة يايو طاهر كلا يقرب سيوي بيهو محيو قيب سمان طهارة وما يقنع وحاسو نبا كهرية ورمنا إن شاء الله تعالى أن سوكوبنو إيضو كلمة oo mid walba daliilkeeda wadatana aynu qaadan insha Allah taala kitaabkan waxaynu akhrin doonaa saddexda maalmood oo la akhrinayo insha Allah saddexda maalmood
waqtigiisa kolba waana soo horumarin karaa waana dib ridan karaa kolba salaadahay la socotaa marka waxaan rajaynayaa biidni rabbi alcaalamiin inuu ilaahay noo sakhiro inuu kitaabkani waqti kooban aynu dhammaysano si salaadeenna aan u suganno oo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan maaragtay u koobanno wasala allahu wasalam calaa rasuulihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaynu ka bilaabaynaa istiqbaalu lqibla laakiin qabla istiqbaalu lqibla aynan tegin baynu waxaan akhrin doonaa biidni rabbi alcaalamiin inaynu طهارتي هرت بلاينو وحوغا سو كرمرو سي ان ماركتاي usoo sugno insha Allah ta'ala tan labaad waxa la isweydiinaya waqtiga kitaabka aynu akhrinayno wala leeyahay waqtigan oo kale waxooga waa dib dhac hadii aan ka dhigno waqtiga uu wanaagsan ee munaasaba 5 iyo 20 oo kale ama sidan oo kale marka in aragtida la isku dhiibaa la rabaa la ogaado waqtiga aan isku keenno insha Allah ta'ala waqtigan akhrin doono barakallah شنو فرت شنو فرت